learn English for free. لغة English كسب بلاش كبره وأنا عمر دقو عشر كلمات وحكوا سابسين grammar نحبها يوم مركب كسابسين أسبوعي هراء مقال كان صار دقنا وحكوا سابسنا يعني pronunciation كان يعني دواقع يكوا سابسنا عشر كان نسيده كلا مركب وحول حريرة عشر كي هراء أيام هراء مركب صار دقنا بيجك أو مركب countable nouns مركب وعشر مركب للصعود وحن كهلنا عشر كيلو حكوا سابسين plurals يعني وذرين مجا مسقبة الله وذريا لغة إنجليش شروع ديس أنت نوجد بين مجران حيرر أفك الصومالية مجاعيد مركا لغة جمعية كدب وحن أسوق جد بدونا هدو عليه هذا لغة إنجليش كان أسوق جد بدونا مركا أسوق جد بينه وحنا عندنا مركا إكسايز by the way سؤال شو قريس بولرولز وذرين مجا مسقبة الله وذريا مجا وحلا وذريا لبقى كو regular regular bulrolls waxaa loola jeedaa Soomaalihaan waa qaabka wadaraynta magacyada ee sharciga ku dhisan that means magacaada inaan ku darsano s inaan ku darsano es inaan markaan ku darsano ama marka magaceena inaan ku darsano ies magacaan haddii aan ku darsano s ama haddii aan ku darsano es ama haddii aan ku darsano ies that means wuxuu ku dhisan yahay sharciga ku dhisan yahay goorme es lagu daraa goorme es lagu daraa goorme es lagu daraa sidoo kale markaan waan arki doonaa sidoo kale magaca waxa kaloo wuxuu kaloo noqon karaa irregular plurals yani irregular plurals yani waa qaabka wadaraynta magacyada kuwaas oo aan ku dhisnayn wax sharci ah sharci kuma dhisnaa iyaga laakiin waxay lahaadaan different form yani qaab kale marka ay lahaadaan hada regular literally macnahaan waxa loo jeedaa literally waxa loo jeedaa wax marka joogto ah wax joogto ah oo isbedelaynin as in lagu daro es in lagu daro ama is marka in lagu daro لكن كوا مركا و irregular يعني واحد مركا وإيش بدلان so in general nouns can be formed by adding s to the singular سيقول دهانات مقاعدة وحلو قابية إذا لو قدرها s مقاعد كليدة يعني singular nouns كا وحلو قدرها s مركا جمع لو ديجو so مركا هاتو سؤالهان وكله car جاري و singular هدي هنرو مقاعد جمع أنا كديجو s أنا كده سنة cars جواري si guud ahaaneed marka magacyada waxa lagu daraa s ayaa marka lagu daraa markalna waa lagu daraa waa arki doonaa sidoo kale hal mar aan isla fiirino xeerka wadaraynta magacyada afka Soomaaliya magacyada qaab noocyo horta loo wadareeyaa marka ugu horeysa sharciga koowaad maxaa la dhahaa magacyada labka ama dhadiga ah yaani leh labada alul ama labada cod markii aan rabno magacyadaas inaan jamcino markii aan joogno luqadeena ama afkeena hooyo waxaan ku darsanaa o xarafka o ayaan ku darsanaa hada tusaale ahaan baabuur yani magacaan wuxuu leeyahay laba alul maadaama laba alul uu leeyahay markaan rabo jamc inaan ka dhigo o waan ku darsanaya baabuuro jamc waxaa kaloo ka mid ah daanyeer laba alul oo leeyahay daanyeero waxaan ku darsanayaa o ayaan markaan ku darsanayaa waxaa kaloo ka mid ah sharciga labaad magacyada labka madhidiga ah kuwaasoo leh hal alul ama hal cod markii aan rabno inaan jamcino waxaan ku darsanaynaa qodobka a ayaan ku darsanaynaa xarafkiisa u dambeeyna markaan waa raacinaynaa saan u fahmo tusaale wiil yani magacaan wiil markaan rabo inaan jamciyo wuxuu leeyahay hal alul leeyahay wiil maadaama hal cod uu leeyahay waxaan ku darsanaynaa qodobkeena a markii aan ku darsano xarafkiisa u dambeeyay ayaan markaan maxallaan ku xijinayna wiilal aan ku darsaday wiil xaraf u dambeeyna elo ahaa wiilal waxa kaloo ka mid ah ul hal alul leeyahay qodobku waxa ugu daraysaa a ugu dar xarafkiisa u dambeeyna ku dar ulal hada ul elo u dambeeyo Soomaan maadaama elo u dambeeyo xarafkan waxa sameynayaa aan ku darsanaya hal cud leeyahay markaan ku darsado hadana kadib waxaan ku darsaday xarafkii u dambeeya ulal masas qaabkaas marka u siiba exceptionsna wuu leeyahay sida nin jamac ka dhiga lagu dhahay adigoo marka yani ku dabaqay sharcigan nin ana u dambeeyo hal cod leeyahay ku darso أنت قدام بهدي لو قدر صدا نينان إيه نقونيسان نينان مركا وقلت ونيمان sidoo kale waxa walba xilay marka
exceptions markaa way leeyihiin waxaasna wax markaa luqad kasta ay leedahay waa sharcigeena saddexaad magacyada labka ah ama dhidiga ah kuwaas oo u dambeeya xarafka i markii la rabo in la jamciyo waxaa lagu daraa yo xuruufta yo ayaa lagu daraa hatta tusaalahaan oo kale guri waxa u dambeeya magacan i markaan rabo jamc inaan ka dhigo waxaan ku darsanayaa yo guriyo waxaa kaloo ka mid ah midi iya u dambeeyo midiyo waxaa kaloo ka mid ah ciji iya u dambeeyso cijiyo xeerkeena afraad haddii magacyada labka ma dhidiga magacyada labka dhidiga kuwaas oo u dambeeya xarafka o markii aan rabo inaan jamcino waxaan ku darsanaynaa oyin sida magaalo waxa u dambeeyo o markaan rabo jamc inaan ka dhigo waxaan ku darsanayaa oyin magaalo soomeen oyin iyo raaci magaalooyin waxaa kaloo ka mid ah dhibaato oo u dambeeyo dhibaatooyin kuwaasna hadda waa xeerarka afka Soomaaliga markii la rabo magacyada in laga dhigo markaa in la wadareeyo ama marka jamc in marka laga dhigo kuwan oo kale maadaama shuruuci u hoggaansan yihiin sidoo kale regular pluralis ayagana sidoo kale waa magacyada ku dhisan shuruucda Ingiriisiga okay marka regular pluralis luqadda English hal mar aan isla fiirino muuqaalka xiga magacyada laba mar is lagu daraa si marka jamc loogu dhigo mar sharci kuma saleysano marka la wuxuu ku saleysan tahay sharci in general nouns can be formed by adding s to the noun yani si guud ahaaneed nouns magacyadu can be formed waxaa loo qaabeeyaa by adding s iyadoo s markaa lagu daraayo to the noun magaca s aa lagu daraa markaan sharci looma fiiriyo hadda tusaale ahaan oo kale car يعني halkan waa singular halkan waa plural hada car waa keli s ku darso cars gawaari house guri houses guriyo hook يعني book books buwaag bird shimbir birds shimbiro farm bear farms beero sidoo kale eraser tirtira erasers يعني tirtirooyin computer ama computers computero friend saaxiib friends saaxiibo dhamaantood waxaan ku darsadaa s qalinkan waa loo jeedaa fila s markaan yani sharci kuma saleysano hadda tusaale ahaan oo kale r waa consonant waxa ka horeeya shaqal okay e waxa ka horeeyo s na markaa waa shibane hadda book k u dambeeyo waa consonant waxaan ka horeeyo markaa shaqal ka horeeyo sidoo kale sharciga xiga waxaa kaloo ka mid ah sharciga koowaad when the noun ends in markii magaca uu ku dhamaado a vowel plus y hadduu ku dhamaado we add s ayaan waxaan ku daraynaa to the noun magaca waxaan ku darsanaynaa s ayaan ku darsanaynaa tusaale ahaan oo kale boy yani waa wiil magaca hadda waxa u dambeeyo vowel plus y yani vowels waa naqaanaa a e i o u midkooda plus y waa haddii magac la raaciyo magacaas waxaan ku darsanaynaa s ayaan ku darsanaynaa hodhow waxaan leeyahay boys wiilal waxaa kaloo ka mid ah holiday yani waa fasax hadda waa vowel plus y vowelkayga waa a y marka u dambeeyo vowel plus y hadduu u dambeeyo s aan ku darsanaynaa holidays qaabkaas jamca u dhigaynaa key fure yani vowelkayga waa y na sidoo kale waa y keys yani furayaal qaabkaas marka jamca ugu dhigaynaa sharcigeeda labaad when the noun ends in magac markii uu ku dhamaado a consonant plus y markii uu ku dhamaado magaceena we remove y ayaa meeshaan ka saaraynaa and add waxaana ku darsanaynaa ayaan ku darsanaynaa es ayaan waxaan ku daraynaa to the noun magaca es ayaan markaa ku darsanaynaa tusaale ahaan oo kale country waa wadan hadda maanta waxa u dambeeyo consonantigayga waa r consonant plus y okay y-dan waan tirayaa booskeeda waxaan ku bedelanayaa I kadibna waxaan ku darsanayaa es waxaa kaloo ka mid ah lady yani marwo d waa consonant y-na markaa waxa loo yaqaan waa xarafkii consonant plus y hadduu yahay yani y-dan waxaan sameynaynaa meesha waan ka saaraynaa booskeeda waxaan ku bedelanaynaa I sida yani sharciga ah kadibna waxaan ku darsanaynaa es waxaa kaloo ka mid ah university jaamacad t waa consonant plus y-dan maxaa la dhahaa booskeeda waxaan ku bedelanayaa I markii aan ku bedelo yani y meesha waa ka tiraa y waa ka tiraa markii aan ka tiro waxaan ku bedelanayaa I kadibna waxaan ku darsanayaa es ayaa markaan ku darsanaynaa
qaybtana waa qaybta ugu dambaysa marka exercise-ka correct these mistakes يعني qaladaadkan idil sax saddex dhamaantan يعني saddexdan way wada qaldan yihiin inaad maxaa la saxdo isku day mid ugu horeysa I live two I have two car isku day okay waa qalad meeshaan waxa ka maqan s ka maqan I have two cars aniga waxaan haystaa laba gawaari I live in a country waa qalad I live in aniga waxaan ku noolahay a country wadan ayaan ku noolahay يعني A maxay ku tilmaamaysaa singular ay ku tilmaamaysaa maadaama singular ay ku tilmaamayso marka countries lama dhihi karo country I live in a country waxaan ku noolahay marka wadan mid saddexaad families maxaa ka qaldan isku day okay halkan waa ku jiro families jamac markii laga dhigayo waayo waa in la tiraa markii la tiro markaas waxa lagu bedelaa I kadibna ES marka lagu daraa mid xigta write down waxaad qortaa hoos waxa ku qortaa the correct form of plural yani formka saxda ee pluralka hoos marka lagu qoro city jamaceeda la idin ka rabaa phone jamaceeda la idin ka rabaa lock jail army intooda marka jamaceeda marka la idin ka rabaa ha laga soo shaqeeyo ha lagu soo comment gareeyo page waxaan filayaa marka inaad fahantiin waad ka shaqeyn doontaan insha Allah waa mar kale waa anigu ah marka Cumar Duqow muuqaalkana marka asxaabtiina la sii share gareeya dhalinyaro fara badan oo waxa jirto marka casharadan free-ga marka u baahan waxaan u taraaya marka la sii wadaaga aadan u maasantiin dhamaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh